bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada daawadayaal warka Samakaab TV qodobada ku daawan doontaan waxa kamid ah Kenya oo soo bandhigtay xeelad cusub ay ugu hortagayso weerarada al-shabaab muushinkadan ah madaxweyne waaro loo gudbiyay guddoonka baarlamaanka Hirshabelle beelaha qaar ee Galmudug oo si kula lagu horyimid xildhibaanadii ahlu sunna ay ku dhawaaqday Galmudug iyo Axmed Madoobe oo sheegay in ciidamada Jubbaland deegaano horle ay al-shabaab kala wareegeen haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta aan channelkan soo gelino taariikhdu waxay tahay 26 December sanadka 2019 intaad maqasheen oo faahfaahsan ku soo dhawaada daawadayaal dawladda Kenya ayaa soo bandhigtay xeelad cusub oo cajiib ah oo ay ugu hortagayso weerarada al-shabaab maamulka magaalada Wajeer ayaa shaaca ka qaaday inay diyaariyeen istiraatiijiyad cusub oo lagu xasilinayo amniga magaalada Wajeer kadib markii ay kordheen weerarada dagaalamayaasha al-shabaab ay ka geysanayaan magaaladaasi gudoomiyaha Wajeer ayaa warbaahinta u sheegay inay go'aansadeen in ay kulan la qaataan odayaasha gobolka Gedo ee dhinaca Soomaaliya iyo odayaasha Wajeer kadibna sameeyeen guddi isku dhaf ah oo ka wada shaqeeya ammaanka sohodinta labada dal gudoomiyaha ayaa odayaasha labada dhinac ka dalbaday inay si wadajir ah uga wada shaqeeyaan amniga isla markaana xoog saaraan sidii hay'adaha amniga ee Kenya booliska iyo nabad sugidda ay u heli lahaayeen xogaha weerarada al-shabaab ka hor intaysan fulin isniintii la soo dhaafay saraakiil kamid ah hay'adaha amniga Kenya ayaa ka badbaaday weerar miino ahaa kadib markii gaari ay la socdeen uu dul maray markii uu dhaafayna ay qaraxday xeeladan cusub ee loogu hortagayo weerarada al-shabaab ayaa imaanaysa kadib markii ay cirka isku shariirtay weerarada al-shabaab ka fuliyaan gudaha dalka Kenya kooxda al-shabaab ayaa horey u sheegatay inaysan joojin doonin weerarada ay ka fuliso gudaha Kenya intay ciidamada Kenya iskaga baxayaan Soomaaliya dawladda Kenya ayaa waxa ka jooga ciidamo badan gudaha dalka Soomaaliya kuwa oo kamid ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM kaas oo muddo ka badan 10 sano ka socda Soomaaliya al-shabaab ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay aad u kordhiyeen weerarada ay ku qaadayaan ciidamada booliska iyo kuwa militariga ee ku sugan gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya todobaadyadii la soo dhaafay al-shabaab ayaa weerar ay ka geysteen dalka Kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari magaalooyinka Wajeer iyo Gaarisa waxa ku nafwaayay dad badan oo shacab ah ayaa askar ka tirsan booliska Kenya al-shabaab oo dhowr mar ka hadlay weerarada ay ka geysanayaan dalka Kenya ayaa wacad ku maray inay sii wadi doonaan inta ay ciidamada Kenya ka baxayaan Soomaaliya markaana daawadayaal Hirshabelle in ka badan 40 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa mooshin xilka qaadis ah madaxweynaha maamulkaasi Maxamed Cabdi Waare u gudbiyay guddoonka baarlamaanka xildhibaanadan ayaa madaxweynaha Hirshabelle ku eedeeyay qodobo kala duwan oo ay ku jiraan xil gudasho la'aan iyo inuu ku fashilmay ilaalinta amniga iyo xasilinta nabadgelyada deegaanada Hirshabelle mudanayaasha mooshinka diyaariyay ayaa maanta kulan la qaatay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle iyo ku-xigeenadiisa koobaad iyo labaad waxayna u gudbiyeen warqad ay ku saxiixinayeen magacyada xildhibaanada mooshinka gudbiyay haddaba xildhibaan Cabdiraxmaan Guure oo la hadlay warbaahinta ayaa kamid ah dadka gudbiyay mooshinkan xilka looga qaadayo madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare lama oga talaabada xigtay ay qaadi doonaan xubnaha wada mooshinkan xilka looga tuurayo madaxweynaha Waare balse waxa la og yahay inuu socdo abaabulka sidoo kale xubin ka tirsan baarlamaanka oo taageero weyn u ah xukuumadda oo haatan warbaahinta kula hadlay Jowhar ayaa sheegay laguna magacaabay aadan kala dire in qaar kamid ah xildhibaanada ay wadaan mooshin aan waqtigan loo baahnayn kaasoo keeni kara buuq siyaasadeed sida la og yahay dhamaadkii sanadkii 2017 ayay ahayd markii madaxweyne Maxamed Cabdi Waare loo dhiibay xilka madaxweynenimo ee dowlad goboleedka Hirshabelle waxaana jirta in lagu guuldareystay dhowr mooshin oo laga gudbiyay xubnaha ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle ayaa sanadkii hore 2018 sidaan oo kale mooshin uga diyaariyay madaxweyne Maxamed Cabdi Waare inkastoo markii dambe ay sheegeen in ay ka noqdeen mooshinka kadib wada hadal la furay danka kale maanta magaalada Jowhar waxa ka dhacay barnaamij aad u gilgilay magaaladaasi kuwa ay dhigayeen dadka shacabka ay ku nool magaaladaasi wararka laga helay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle waxay sheegayaan in askari ka tirsan ciidamada maamulka Hirshabelle oo nin ganacsada ah u dilay 5,000 oo shilinka Soomaaliga ah dilka ninkan ayaa yimid kadib markii askariga uu weydiistay inuu bixiyo lacagta ninka oo suuqa Jowhar ku iibinayay malay hase yeeshee uu sheegay inuu
haddahin balse xabad uu ku dhuftay sida uu sheegay qof ka mid ah dadka magaalada Jowhar isii 5,000 oo Soomaali ah walaalo ma hayo ilaa aan ka gudanayo malaaygiga aan soo qaatay isug madaxa ayuu uga dhuftay xabad 5,000 darteed ayuu u dilay waxayna ka codsanayaan laamaha amniga sharciga la horkeena dilaaga sida xaqdarrada uu ku dilay miskiinkan ayuu yiri qof ka mid ah dadka Jowhar askariga dilka geystay ayaa la sheegay inuu ka baxsaday goobta uu dilka ka dhacay waxaana baadi goob ugu jiray ciidamada booliska magaalada Jowhar dadka cariisan dilka wiilkan oo magaciisa lagu sheegay Yaasiin Maxamed oo 33 jir ahaa ayaa waxay barnaamij ka dhigeen wadooyinka magaalada Jowhar iyagoo hakad muddo kooban ku yimid isu socodka dadka iyo gaadiidka qayb ka mid ah magaalada Jowhar wiilka maanta lagu dilay Jowhar ayaa waxa xusid mudan in wiil la dhashay sanadkii hore uu dilay mid ka mid ah ciidamada militariga xaafadda horseeda ee magaalada Jowhar waxaana marxuumkaasi isna lagu magacaabi jiray Cabdicasiis Maxamed Maxaad markaana daawadayaal Galmudug qaar ka mid ah beelaha Galmudug ayaa ka hor yimid xildhibaanada ay soo magacawday ahlu sunna waxaa haatan uu khilaaf ka taagan yahay 20 xildhibaan oo ahlu sunna wal jameeca laga siiyay baarlamaanka cusub ee dowlad goboleedka Galmudug iyadoo odayaal iyo waxgarad ay ka soo horjeesteen Cabdullaahi Macallin Cali oo ka mid ah dadka deegaanka Xiraale ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay in marnaba aysan ogolaan doonin raalina ka noqon doonin xildhibaanada ahlu sunna laga siiyay baarlamaanka Galmudug wareysi uu siiyay warbaahinta Muqdisho qaar ka mid ah ayuu sheegay in marnaba aysan ka qayb noqon dhismaha Galmudug ururka ahlu sunna oo in ka badan 70 ruux ku dilay deegaanka Xiraale isla markaana aqbaleen in xildhibaanada deegaankooda loo xil saaro urur gaar ah sidoo kale waxaa jira beelo oo ka hor yimid 20 xildhibaan oo ay dhawaan ku dhawaaqday ahlu sunna iyadoo beelaha qaar ay ku doodayaan in laga qaatay tiro badan oo aysan qaadan karin marnaba dhanka kale waxaa magaalada Gaalkacyo ka dhacday xaflad lagu soo dhaweynayo labadii xildhibaan oo ay ahlu sunna ka qaadatay beesha Sacad oo aad ugu xoogan gobolka Mudug dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan si rasmi ah ugu dhawaaqday in ahlu sunna u ogolaatay 20 xildhibaan oo ka mid ah 89 xildhibaan ee uu yeelanayo baarlamaanka Galmudug markaana daawadayaal Jubbaland Axmed Madoobe ayaa sheegay in ciidamada Jubbaland deegaanada ay kala wareegeen dagaalamayaasha Al-Shabaab madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta oo Khamiista shir gudoomiyay kulanka golaha wasiirada looga hadlay arrimo dhowr ah ugu horeyn madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ka warbixiyay howlgallada ciidamada ammaanka iyo xaaladda ciidamada ku sugan furimaha isagoo xusay in ay hayaan shaqo adag oo ay dadka shacabka ah ka badbaadinayaan ururka Al-Shabaab waxa madaxweynaha uu sheegay in howlgallada ay ka sameeyeen ciidamada khasaare adag ay ku gaarsiiyeen Al-Shabaab iyadoo meelaha qaar ciidamadu ay kala wareegeen dhanka kale wasaaradda beeraha ayaa intuu shirka socday waxay ka warbixisay qayb ka mid ah deegaanada Jubbaland oo uu soo gaaray ayax ku habsaday qaybo badan oo ka mid ah dalka waxaana wasaaraddu ay sheegtay in 20 kiiloomitir uu ku habsaday iyadoo meelaha Jubbaland ka mid ah ee ilaa haatan lagu arkay ay tahay degmada Beleda Xaawo iyadoo wasaaraddu ay sheegtay in dadaal lagu jiro sidii wax looga qaban lahaa arinta wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska waxay dhankeeda ka warbixisay shir looga hadlayay cimilada si xumaanaya iyo isbedelada ka dhashay oo ka dhacay magaalada Muqdisho iyadoo wasaaraddu ay sheegtay in go'aanada iyo talooyinka shirkaas ka soo baxay ay yihiin kuwa wax badan ka tari doona isbedelka cimilada iyo sidii saameyntiisa loo yareyn lahaa maalmihii u dambeeyay ciidamada xoogga dalka iyo daraawiishta Jubbaland waxay howlgallo ka wadeen deegaanada dhaca magaalada Kismaayo iyo kuwa hoostaga Jamaame ee isla gobolka Jubbada Hoose ciidamada dowladda ayaa dhowr deegaan oo ay ka mid tahay kooban kala wareegay dagaalamayaasha Al-Shabaab oo in badan halkaasi maamulayay daawadayaal waa naga intaa warkii aad kala socoteen Samakaab TV haddii aad ugu cusub tahay fadlan daawaday subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta aan channelkan soo gelino